waayo su-aal abaan weli laga jawaabin qofku muxuu xoolaa ku falaa qofka biniaadamkii muxuu xoolaa ku falaa yani xooluhu waa inay noqdaan miinis aad baahiyahaaga ku fushan karto gartay intaa markaad hesho iyo in leeg iyo in kaloo leeg markaad hesho inta kale maxaad ku falaysaa haddaan idhaahdo waxaad noolaan kartaa ka soo qaad 60 sano imsaa kugu bixi kartaa 70 sannadood ood noolaan kartaa 70 sano maxaa kugu bixi karaa daynu qiimayno nidhaahno 5 milyan ka soo qaad 5 milyan pound baad u baahan tahay 70 sano inaad noolaato wixii qarash kugu bixi lahaa biniaadamku ma ku qanacayaa shan u qaato inta kale iska daaya waa maya muxuu ku falayaaba su-aasha isweydiinta leh waa maxay niidhiska loo qabaa ma intaan ururiyo inaan dhinto baahida aan u qabaa maxay tahay maal waxay yidhaahdaan shahwaadkan oo dhan isku soo dar waa wasaa'ilu lxayaa laakiin hadday maqaasid isu bedelaan waa wixii lagu kaalmaysanaya nolosha laakiin hadday iyagu noqdaan wixii loo noolaa hadday noo مثلا شهوة البطن inaad wax cunto haddaad u noolaato inaad wax cunto daweydanka arkay maanta dunidu badhna gaajay ka baqaysaa inay u dhimato badhna obesity ba u dhinteen inna baruurtii baa ka badato waa la eryayaa iyo waa la raadinayaa iyo waa la wadaa inna baktay u dhimatay idan wax kasta oo xadkiisa la dhaafiyo desireskan bini aadam ka mid a kama maarantid oo lama goyn karo oo dee noloshaad ka baxaysaa cuno kama maarantid haween kama maarantid caruur kama maarantid waxaan qur-aanku sheegaya kama maarantid laakiin hadday iyagu maqsad kuu noqdaan waxaad u nooshay hadday iyagu noqdaan waa markaasi markay dhibtu taagnaanayso saa daraaddeed saxaabadii qaar ka midaba xamaasadooday dabeetana waxay yidhaahdeen sow shahwaadkan maaha waxayna dawakhiye gurigii nebigay tageen calayhi salaatu wasalaam gurigiisi bay soo eegageen waa loo sheegay nebigu siduu u cibaadaysan jiray waa ka dabeetana si kale isu qanciyeen waxay idhahdeen war nebiga isaga ilaahay baa dembigiisii horiyo kiisii dambaba dhaafay innagu waxaynu u baahannahay tiro badan le inaynu samayno haddaba si ay taasi u dhacdo desireska waa inaynu joojinnaa mid baa wuxuu yidhi markaa anigu horta dumar iyo guurkoodba waa ka tegayaa naagba arki maayo mid kale isna wuxuu yidhi aniguna waxaan ka tegayaa cunno iyo habeen maalin oo dhanna waan soomanaan habeenna waan taagnaan waxyaabo noocaasi ah ayay sheegteen dabeetana nebigaa warkii maqlay wuu u yeedhay wuxuu ku yidhi waryaadheen may caynkaasaa tidhaahdeen haa bay yidhaahdeen antum aladiina qultum kada wakada nimankii sidaa yidhi baateen haa nebigu wuxuu yidhi wallaahi innii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah anaa ilaahay idinkuna cabsi badan idinkuna taqwo badan riwaayadka qaarkoodna idinkuna aqoon badan waayo aqoontay waxaana ka dhalashaa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa anaa ilaahay idinku aqaana laakiin anigu waan soomaa oo waan afuraa buu nebigu yidhi oo waan tukadaa oo waan seexdaa oo dumarka waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii sunnadayda ninkii ka wacda anigaygama mid aha muxuu tilmaamayaa qoladan tidhi gamtaan nugu joogsanaynaa kuwaas waddadoodu ma saxna laakiin waddadu waa meel dhexay diintu inoo tilmaamaysa walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan walaa taqrabu الzina inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila qofku meel dhexe inuu yimaado ah nafta inuu kontrooli karo naftiisa inuu kontrooli karo oo shahwa biduuni qaydna ma socoto hadday tahay taa rag iyo dumarka u dhaxaysa falaa takhdacna bilqowl fayatmaca aladii fii qalbihi marad buu ilaahay ku tilmaamay kii qalbiga uu bukaan kaga jiro waa bukaan bay xad gaadhaysaa idan waxaynu nidhi waxa kan ilaahay baa inagu abuuray waa mid waa baahi aynu qabno waa laba sidee baynu u maamuli karnaaba markaa isweydiinta leh ama u cilaajin karnaa aayadda inta ugu dambaysa ilaahay wuxuu ku tilmaamay dhalika mataacu alxayaati addunya markii 60 shayba ama 50 shayba lasoo tilmaamay waxaa la yidhi dhalika mataacu alxayaati addunya kaasi waa bidhbidhka nololeed
waa in yaroo lagu tamatuco nolosha adduun macnaa ku jira muxuu yihi halkan umaydan iman inaa weligiin joogtaan ee waxa u timaadeen ashyaada tani waa waxyaaba laydinku itixaamayo lilibtilaa waa laydinku itixaamaya laakiin halkani maaha meeshii aad joogayseen ee wallahu cindahu xusnulmaab ilaahay subxaana wa tacaala baa noqosho fiicani xaggiisay jirta kow qofku marka koowaad desirska waxaynu xadayn karnaa inaynu aakhiro fahamno inaynu garanno halkan muddo yar inaad joogayso sida awgeed haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso waad isdhibtay una you will die waad ka tegaysaa adunbaa ismashquuliyeye waad ka tegaysaa sida awgeed waa inaad ku tala gashaa waxaan maxaa aakhiro kaa raacaya maxaad nolosha kaga qaban karaysaa maxaad bedeli karaysaa ururintu maaha maqsad inaad ururiso agtaada taallo yani qof baad arkaysaa subaxii ka lahay oo ilaa habeenkii shaqaynayey oo habeen iyo subaxba saa u wada oo inta xoolaa le ah oo inuu ururiyo unu nool waxaan u garanayn hantidu maxay qiimo leedahay markaa yani muxuu ku falayaa qofku walidaalika baa ilaahay aayadda ku xigta wuxuu leeyahay qul aunabbi'ukum bikhayrin min dhalikum liladiina taqaw cinda rabbihim war ma idin sheegaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wax tan idinka khayr badan kuwa ilaahay ka cabsada waa haddaad jannaad iyo beere iyo aswaaj mutahara iyo waxaan haddaad rabto meesha aan laga dhimanayn bay jirtaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala janno ayay aakhiro jirtaa idanka koowaad ee waxaan lagu xadayn karaa waa inaynu qiimatu alxayaa garanaa xayaati dunyaa iyo xaqiiqadeeda waa inaynu fahamnaa ka labaad waa inaynu garanaa aakhiro saynu u guulaysan lahayn qofka bini aadamka waa inuu noqdaa goolkiisa kama dambaystaahi ilaahay siduu u raalli gelin lahayo jannada intan leeg siduu u heli lahaa hadduu your goals dhammaantood ahdaaftaadoo dham ay ku soo koobmaan guri yaroo ballaadhan oo aad sariir u kaga seexan doonto gawaadhi tiro badan oo aad mid u ka fuuli doonto iyo lacag tiro badanoo ku mashquuliso uun nin nimanka waxaysta soomaaliyeed ka mid ah ee subax u soo galo cadhaysan dabeetana nin raggii ku dhadhawaa baan ku ihi odaygan maalintaan imaadaba waa cadhaysanya maxaa ku dhacay wuxuu igu yidhi subax walba waxaa loo yimaadaa waxaa loo sheegaa kambani ballaadhan buu leeyahy kambanigiisa wixii ka lumaya problems jira subaxii lagula soo kala habeer subaxii markuu xafiiska imaado report baa la siiyaa meel heblaaya intaasaa luntay qoladii xaggaasi waxoogaagaas way la dhunteen kuwa waxaasa ka dhacday halkaa mushkilada looma sheega buu yidhi subaxii markuu soo galo saaka 400 kun baynu faa'iidnay cidi kuma tiraahda buu yidhi laakiin negativeska loo soo ururiya markaa subax walba uu cadhaysay maxaad ka faa'iiday markaa hantida kuu biirtay haddaad subax walba cadhoon ka qaadayso iyo mushkilad jirta maxay kugu kordhisay ilaahay wuxuuna yidhi wa amaa man khaafa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك مقياس كسوين كالنوضة ننكا نفتي سكر يا بابا الليلي عن الهوى يعني ضبط النفس نفط وينت كنتروشا معنى دوا محي مثل أمثلة بسيطة عنا ذا هداد ودك ور شو ويدو ومركي علوشو ديركتات رابي تايسر اسبانو باهني ساد انتي ادعوني جرتين كبدان ادو عنتو binaadamku awal in buu cuni jiray intaasaa ku fillayd waxay damceen in ka badan inay cunaan si uu in ka badan u cuno ayaa loo fakaro waxa la yidhaha appetizers baa laga horraysiiyaa marka birima intaad cunada weyn cunin appetizers cun shahiyada kuu sii furtaa si aad u hunguri weynaato markaad dibirtaaba haddana la leeyahay may hadda waxaad u baahantahay digestionka inaad dedejiso wax daaca kaa keeno hore oo maxaad markii hore isu dabirinaysa maad markaagii hore macnaheed waxa weeyaan shahwatul batni baad inaad wax cuntaabaad qasti ka dhigtay iyadaad comfortable iyadaad mooday wax lagu raaxaysto sida awgeed baa waxay noqotay in marna loo raadiyo wax ku laqsiiya marna loo raadiyo wax maxay kaa dejiya hadhowna lagu idhaahdo waxaad u baahantay si aad u caafimaaddo inaad orodo oo
boodboodo oo intan saa marka inaad wax cuntaa haddaad controli weydo waxay keentay noloshaado dhan inay dhib ku noqoto haddaad controli weydo saa daraaddeed nafta bini aadamkahay waxana waa wasaa'il laynoogu talagalay inay nolosha ku fidoodsanno walidaalika mar hadday noocaa yihiin waxaynu u baahannahay koowaad waa dabdi nafs waa inaynu controli karno nafta inaad adigu hanato oad controli karto maxaad cunaysaa maxaad fuulaysaa maxaad dhaqanaysaa xaggaad u socotaa waa inaad waxaad garataa noqoto saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay war aakhire kuwa liibaanay wa amaa man khaafa maqaama rabbi wanaha nafsa can ilhawa faina aljannata hiya alma'wa walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu xibbaan soo saaray sheekh alalbaani saxiixa ku tilmaamay wuxuu yidhi waryaadhen ma idinka warramaa mu'minka haa bay yidhaahdeen waa man aminahu nnaasu calaa amwaalihim wa anfusihim buu nebigu yidhi waa kay dadku naf iyo xooleba ku aamini karaan muslimka ma idiin sheegaa waa qofka ay ka nabad galaan dadku carabkiisa iyo gacantiisa markaasuu nebigu yidhi mujaahidka ma idiin sheegaa waa man jaahada nafsahu fii taacati illaah waa qofka naftiisa kula dirira ilaahay taacadiisa muhaajirka ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi waa man hajara can alkhataaya wadunuub waa qofka idan wixii oo dhan wuxuu lagu soo koobay qof bini aadama noloshiisa siduu u kontrooli lahaa oo iimaankiisii wax lagu sifeeyey inay dadku ku aamini kara qof ammaano leh inuu noqon karo oo islaamnimadiisii waxa lagu sifeeyey qof dadku ka nabadgeli kara inuu noqon karo oo jihaadkiisii waxa lagu sifeeyey qof naftiisa la dagaalami karo xadayn kara inuu noqdo oo hijradiisii waxa lagu sifeeyey inuu noqdo maxay qof dunuubtiiya waxa kale ka fogaada idan waxaan leenahay kow waa adduunka inaynu qiimihiisa garanno adduunka inaynu qiimihiisa garanno waa maxaynu u noollay intaynu meeshan joogayna maxaan u baahanahay haddaad nafta iska sii dayso adduunkao dhan bay u baahantahy kuma deeqayo haddaad se si riyaliya u xisaabtanto waxaad cuntiyo waxaad cabtay iyo meela degtaad u baahantay daad soo wax ka badan waa uun inaad magac ka raadiso hebel waa bilyaneer in lagu yidhaha ama waa milyaneer ama lacag buu haystaa in lagu yidhaahdo waa magac ka raadinteeda badani mararka qaarkood dadku wuxuu isugu sheekeeyaa hadday mae bataan waxan baan qaban lahaa hortaa jiraba laga waa markaa un bay lexjecladu kugu sii badanaysa imika waxaad iswada leedihin may anu haddaan xoolo heli lahaa kan baan samayn waxaas waa ammaanida dadka lagama fujiyo marka ay soo gasho waayo kama gedisnin inta haysata waa markaad faramarantay bay ammaanida tani ayaad is leedahay malaa kan iyo kan baad samayn lahayd laakiin markay ku soo gasho in yar unoo ilaahay xoreeyo mooyaane wuxuumaad ku biiri doontaa kuwa kan ururinaya inuu la yidhahdo hebel waa bilyaneer ama waa milyaneer ama waa taajir weynun yani magac ka raadiya dadku hadday yihiin dadaanay maadadu qiimo agtooda ku lahayna magacaana maad hesheen dee mujtamaca kugu xeeran baa wuxuu u badan yahay inuu waxa kan wax weyn u arkayo kaasi waa kow qaybtiisa labaad waxa weeyaan inteeda xalaasha in lagu tamatuco oo ilaahay wuxuu yidhi shahwatul farjigaasi oo kale waankixul ayaama minkum baa la yidhi wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum kuwiina aan guur haysanin u guuriya waxaa la yidhi kuwii waaye ee uun duruufaadku ay ku yara adkaadaana walyastacfif waa aayadda ku xigta walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli arrinku arri weyn maaha ciddaanay markaa u suurtogelinna ha dhowrsanaata baa la yidhi suuqa ha gasha lama odhanin waxaa la yidhi ciddaanay markaa u suurtogelinna sidan baa saxda ah ha dhowrsanaato shayga labaad aynu tilmaamayna waxa weeyaan shahwaatu nafsi lagu kontaroolaa inaynu ilaahay baryadiisa badino oo nabiyullaahi yuusuf ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay khatar la geliyey oo gabadh boqortooyada ka tirsan oo qurux badan oo kana iyo weliba dumarkii la waday iyo kooxahaas oo dhamm intay u heshiiyeen in xumo lagu rido in lagu talagalay laakiin wuxuu malaad ka dhigtay ilaahay baryadiisa oo intuu ilaahay baryey ayuu wuxuu leeyahay wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna waa kun min aljaahiliin
إلهينا مركاسو لي فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إذن إنه إلهي بريدي سبت صنه وإلهي سبحانه وتعالى طريقة صح إنه ينقوها أيوه أو حماها دمان تودي نقر دوره إنه ينقو داله. وحين تاكو حيقا وحويان باب السد الذرائع بي علماء دو يدهدان wadada xumaha ku geynaysa inaad awdo wada kastoo xaaraan ku geynaysa inaad isku daydo inaad awdo oo haddaad mashaakilka u banbaxday inaad guulaysan doonto lama hubo ya naftaadu imanka markaynu halka fadhino haddii dagaal laynooga warramo nin waliba wuxuu isleeyahay dee male waad jihaatami lahayd oo waad laakiin markay naga dul dhacdo inta jihaatami lahayd waxaan u malaynayaa inay badnayn. idan wax habboon inaad adigu marka hore isgeynin meelaha imtixaanku ka jiraan oo adiga iyo ubadkaaga iyo carruurtaada haddaad fitanka u bandhigto cidda guulaysan doonta lama oga. saa ogeed maalan shahwatulfarji markii laga warramay waxaa la yidhi ishiina laabta khalwada iska daaya tabaruj ha samaynina waxaasoo dhamme waa min baabi sadi dharaa'ic si ilaahay subxaanahu watacaala muraaqabadiisu inugu weynaato yaclamu khaa'inata alacyuni wama tukfi suduur. ilaahay waa og yahay ishu tayxadda baa la yidhi iyo laabtu waxay qarinaysa rabbi waa og yahay subxaanahu watacaala. idan ilaahay weynidiisu inay inugu weynaato. shahwaatu nafs waxyaabaa lagu xadeeya waxaa ka mid ah cibaadaadkaagu inay bataan oo naftu haddaad khayrka ku mashquulin weydo sharkay kugu mashquulinaysa. naftu haddaad firaaqaagu hadduu bato dherigtaadu badato dee balaayadana inaad u banbaxdo waa suurtagal. haddiise nafta aad khayrka ku mashquuliso wakhti uma helayso waxa kan. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy waaqimi asalaata ina asalaata tanha can alfaxshaa'i waalmunkar. salaada ooga baa ilaahay leeyahy salaaddu waxay idinka celinaysaa alfaxshaa waalmunkar xumaha iyo zinada iyo quranka o dhan bay idinka celinaysaa. idan qofku kullama uu cibaadada badsado waa albaab lagu awdo shahwaati nafsigu noocay doonaanba ha noqdaane. waxaa ka mid oo ilaahay qur-aanka ku tilmaamay wastaciinuu bisabri wasalaa. kaalmaysta baa ilaahay yidhi sabirka kow. sabirku waa dee aayat alimaama markaynu ka warramaynay bacd alcasarkii waxaynu soo tilmaamanay imaamnimada sare ee islaamka iyo qumanaanta iyo hogaaminta diimeed waxaa lagu gaadho inay ka mid tahay maxay lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun. waa yaqiin iyo caqiido qalbiga degta iyo sabir aad kaalmaysata bay idhaahdaan. waayo sabarku bikulli anwaacihi oo ah cibaadada inaad ku sabirto shahwaatu nafsiga inaad ka sabirto maqaadiirta iyo ibtilaa'aadka inaad ku sabirto bikulli anwaacihi markaad isku darto ah camalkaagu inuu noqdo siduu camal saalixa u noqon lahaa. sabir baa keensada. saa awgeed baa ilaahay wuxuuna yidhi wastaciinuu biasabri waasalaa wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin. sabir iyo salaad inaynu kaalmaysanno. qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa aakhiro mu'miniinta liibaantay kuwayti qad aflaxa almu'minuun. dabeetana ilaahay wuxuu ku sifeeyey aladiina hum fii salaatihim خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. يعني وحين كسو ورمى النور با إلهي كسو أروري وحلا يدي وكوا مؤمن كالليباني وكوا صلاة دودو معناه والسمين سي خشوع يا إلهي سبحانه وتعالى كحرا مؤمن كقول استبال ليدي وكوا كان مالها اللغو غيا هذا التراد يو وحا اسكيتي. waayo haddaad ka qayb gasho inaad dhowrsanaan bay u badantay. haddaad meelaha fadhiisato fadhi kudirarka haddaad tagto aakhirka adigoo adna dacalka ka wada umaad saarki doontaa. kolay reerkiina meesha ku yara maagano aad siraada ka dhicina waad uneen aakhirka dhinacubaad ka gelaysaa. laakiin haddaad iska dayso meesha laqwiga iyo waxaan fiicnayn lagu hayo waad dhowrsanaanaysaa.
zakaadka kan zakaa waxa loo yidhi bay leeyihin ba namaaga waxa ka sii muhiimsan tahaarada bay leeyihin waa qofku naftiisiibuu bukhligii iyo wixii kaga dahiraya oo inuu qofku dhiibista barta iyo waxbixinta iyo farjigiisa inuu ilaashado waxaasoo dhamme waxa ay tilmaamayaan shahwaatu nafsigii dhowrkee qur-aanku uu soo tilmaamay sidii maxay uu qofku uga xoroobi lahaa idan ayuha alaxiba warka koobane wuxuu yihi desireskani waynu u abuuran yihiin waana taa maanta biologicale la tilmaamaya in la tilmaami karo marka nashwada noocaasi ku qabato maskaxdaada qaybta activeka hee shaqaynaysa gabadh markaad aragta qaybta shaqaynaysa xoola markaad hesho qaybta shaqaynaysa caruurta yaryar iyo jacaylkoodu markuu ka galo qaybta kuu shaqaynaysa quruxda iyo isdhiska iyo waxaa markaad samaysa iyo ziinada iyo fardaha iyo waxaa qaybta ku shaqaynaya yani waxa la tilmaamay hormoonadii jirkaaguna inay maskaxdu awaamirtaa bixinayso ay soo daynayso maskaxduna inay shaqaynayso that means waa wax kugu abuuran waa mawduc limtixaan baynu leenahay markaa imtixaan ilcamali imtixaankii caqadiga marka laga yimaado aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat waa meesha laga rabo camalka saalix inuu ka rakibmo sidaa daraaddeed waxaynu leenahay desireskani waxay u baahan yihiin in la xadeeyo oo aad aada u fakerto xadayntaasina kow sharcigu wixii una faray inaynu yeelno ama ka hortag ha ahaadaan oo ah taxsiin koowaad waxyaabaha precautionska aad sii samaynaysa marka horeba waxaa kaa fogeynaya ama ha noqoto cibaadaadka aad badsanayso ama ha noqoto naftaada inaad traingarayso ka adkaatid oo hawadeeda aad kontrooli kartid ama ha noqoto xaqiiqada adduunkanaynu joogno aad si fiican u fahamtid wakhti yar baad noolaan doontaa maxaad qabaa wakhtigaa yar wakhti yar ama madaxweyne noqo ama maal yeelo ama miskiina haw in yarun baad joogaysaa tan wakhti badan maaha intaa yarna desireskani way kugu abuuraanayaan marnaba dhergina maysid mid intuu buuxsamaad sileeda kaasi wuu dhergay ma jirto laakiin waa naftu saad u kontarasho dumar haddaad mid guursato laba guursato saddex guursato haddii lagu odhan lahaa wad iska wadi lahayd baahida ma istaagto mid baan guursay labaan kuma istaagta xataa laakiin waa lagu kontrooli karaa waa waxaad at least intii aad rabtay ku gudan kartid cunadu waa taa aynu nidhi waa dee waxaabay yidhahdaan caloosha waa iska elastico waa uun tatawasac way sii ballaaran kartaa adiga arkay dad laleeyahay gurigaa lagu jabiyo waxaa lagu soo saaray bini aadam oo lagu wado loo dalbado bahalladan wax qaada waa qof bini aadama ya haw waxaa loo dalbaday maxaa la yidhaha cream dhan oo kuwan gawadhida qaada ah inuu qofkan qaado waana cuno waxa sidaa u galay wax kale maaha gacanta iyo bahalka afkaasi isugu waday ayuunbuu sida tan noqday wax xanuun kale ku dhacayna ma jiro waa uun si wuxuu cunayu sawaakaaday waa kaa bini aadamku intuu xada dhaafay marna ordaya marna ku guraya caloosha idan soo duuduub waxaan oo dhami waxayn leenahay waxaynu u baahannahay inaynu dib u eegno sidii sharcigu sheegayna wixii sharciga aynu ku fulin karna inaynu ku fulino oo dhallinyarada loo guuriyo ciddii loo guurin karo la baro sidii ay guri u yeelan lahaayeen meelaha imtixaanaadka iyo shahwaadkani ka jiraan laga kontroolo adigu naftaada aad kontrooshid maalkan iyo waxaan inaanu ahayn waxaa loo nooliyay inaynu wada fahamno waxa aynu ka rabnaa inay noqoto uun intii aynu ku noolaan kari lahayn ama nolosha aynu ku fudaydsan kari lahayn markaan soo duuduubo saan hore usoo tilmaamay qur'aanku ayi mushkila ina haysata dawooyi ama mushkilo nafsaaniya ha noqoto ama mid bulsheed ha noqoto ama mid caqiideed ha noqoto wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa noloshu waxay u baahnayd oo dhan qur'aankaas baa ayaa daweynaya laakiin waxaynu u baahannahay qur'aanka inaynu si fiican u fahamno oo mashaakilka maanta dunida ka jiro oo dhan inaha kan kama badna
إننا وحينو نمي مال intan ba la isku itixaamo muqriyaadkeedii yaaliin hadday tahay shahwatul jins derbigaad ka soo wareegtaba waxaa kuugu yeedhaya iyo bahalkan yaraad jeebka ku sidatay iyo wax oo dhami waa wax nafta bini aadamkaa kicinayay u badan yihiin waxaa ishaadu aragtaa saasay u badan yihiin hadday noqoto shahwatul maal dadkan iyo classeska u samaysayn iyo tabaqaadkan iyo waxaan oo dhami dee dadku wuxuu struggle ugu jiraa siduu dabaqadan uu ku jiro uga bixi lahaa ee dabaqada ka guriya ballaadhan waxaa laga yaabaa guryo yaraneed ku jirto struggle-kaa koowaad waa guri ka weyn si aad u degi lahayd hadhowna waa guryaha noocaasa si aad u degi lahayd gaadhada wata hadhowna waa helicopter saad u wadan lahayd adigoo bahanna waad dhimanaysaa uun haddii aan dhergin ayuu manad ka tegi doontaa idan waxaan leenahay war waxa kan lagama dherge aan baranna sida loo kontroolo oo lagu kontroolana wixii sharcigu uu sheegay ee ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigu ay inoo tilmaamtay intaasaan ku soo koobayaa sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi